caalamka meel kasta aa kaga sugan tihiin friend iyo familyba habeen wanaagsan kay maalin u tahay maalin wanaagsan dhammaantiin soo dhawaada masha allah soo wada fariista caaw barnaamij badan baa laga hadlayaa haddii allah awoodo la ogolaado caaw waxaa laga hadlayaa hooyooyinka qarankaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaaba 2 oshan baa caaw laga hadlayaa midka labaad ee laga hadlayana waa maamulka galmudug soo wada dhawaada soo wada fariista masha allah kuga ما شاء الله waxaan gaabinay bahal igu dheeray baan gaabinay caawa barnaamijkeenu ما شاء الله dhamaantiin malaa'igha idin wada soo dhawaada caawa barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay hooyooyinka qaranka iyo wuxuu ku saabsan yahay maamulka galmudug waxaan ku horeynayaa hooyooyinka qaranka waa iswada qabsadeen waa la ishaystaa maqlay ما شاء الله وحلو باهي هرتو يوينك وحي قرنك وحي قبطان ما يقع ماشي اسكو عسومة محي قبطان ضلك رفاد فربضنا يالا لباتا فربضنا ودن كتالا محي قبطان هو يوينك قرنك أنا مدان اسويدي ومدان يوح أساميان انتي كأرميان تنكلا أولا بعد مركان أيغا أفل صدي ميل أن وها قاقواد قرن واي maamul goboleedyada ma tagaan gobolada ma tagaan dhibaatada gabdhaha ay qabaan ma soo ogaadaan biyo la'aanta iyo rafaadkaysa ma soo ogaadaan isbitaal la'aantaysa ma soo ogaadaan daryeel xumada iyo rafaadka hooyooyinka haysta ma ay ogaadaan horta hooyooyinka Soomaaliya cambaar baa kaga tuuraya kuwa matalaya iyo kuwa hadda isku haysta inta cambaar baa kaga tuuraya because qaran markii lagu hooyo qaran lagu yiri waxaad mas'uul ka tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee gobolada jooga ee aan waxba haysan ee isbitaal haysan oo meel ay ku dhalaan aan haysan rafaadkii dhibaatada u dhamaaday adduunka uguma qayb tagtaan waxba kama soo qabataan adinkii baaba hadda waxaad keentay waagi hore ragaaba siyaasadda isku haysan jireen adinkii baaba hadda 4.5 ba ku socdaba ilaa dumarku waaba aan ficilka laga soo ridaybo warbahasha naga barxa oo qabiilka naga daaya oo tan kale oo labaad ummadda la sheer gareeya in aa waxa sheer gareysaan isku daya oo in aad waxaan si aqli anta ku samaysaan goboladana tagtaan in aad tagtaan isku daya ma fahamteen xamar kaliya asdaarta inta ku dhex fadhidaan ha dhex fadhinina daarta aad joogtaan ha dhex taagnaanina daartiina daarta waliba waxa maqal igu ah inay kiraysan tahay iyadaba xataa dad ay kira ugu jiraan oo kiradaas inta la qaato in lagu takrifasho wax allaale iyo waxa qabtaan waa garan waay gobolka banaadir meesha aad degantiin hoosteeda waxa jooga hooyooyin masaakiin ah oo kaamam ku jiro oo roobku ku da'o oo isbitaal la haysan oo ilmahooda meel ay seexdaan waay miyaa la isweydiinayn gabadha qaranka miyaa lagu weydiinayn adiga ma adiga kaligaaba ah hooyada qaranka maxaa dhacay maxaa la isku taakulayn waay wadgoonoon maxaa jira bal meel kaleba inta ka tagtid baar bulsho hoosteeda maxaa yaala gabar maskiina oo roobka ku da'ay oo guriga ka gashay aan haysanin waxa joogta meel ay ku umusha iyadoo lahayn baa dhibaato waqtiyada qaarkood uu soo gaara uma hadashid waxaad isku haysataan anaa gobolka matalay iyo eblaaya matalaysa isku haysataan war wax aqliga gali kara ma ahan wixii ragga ay isku haystaan oo 4.5 isku haysteen adikii baa wadaanba war wixii raba ha hayo laakiin ummadoo dhan isla wada ogtahay oo adika dhan ay isla ogtihiin hal la isugu keeno meesha oo isdabayaan iska daaya oo gabdhuhu ha isku tanaasulaan oo nidaam iyo akhlaaq la isugu yimaado qaranku anagoo dhan ay naga wada dhaxaysa aniga halka fadhiyay taa inaan isku soo shaqeysan oo cid ilaahisan iga xikmeen gabadha ifirsanaysa shaqo kale gabadha kale maqan ee aan ogeyn barnaamijkaana xaq u leh in ay isku soo shaqado hooyada qaranka marka hooyooyinku wax
cayaar ama ahan laakiin systemka aad u dhigteen ka daaya gabdhaha waxyaabo badan oo dhaliilo ah oo la idinka tabanayo oo aad samaysaan baa jirta oo aydna qaban oo tii idinka horreysa aysan qaban maxaa laga qabtaa hooyooyinku maxay qabtaan waxay qabtaan male haye iskaa wuxuu qabso meel ma ku dhisteen inta adinka is abaabisheen ma samayseen maydna samayn maxaa samaysaan hadba islaantii taageer weyn sida anigoo kale baad waxaad ku soo dhaweysaan hoteelada markaasaa mid bariis ay kartaa bariis kale loogu daraa somaan ambaar baan dhakadeed kaga tuuraya waa inay gabdhuhu maskax iyo caqli la yimaadaan waa in gobolada oo dhan 5 gobol ilaa 6 gobol ilaa gobolka 8 iyo 10 gobol waa inay gabar walba inta ay timaado doorashadu ay ka soo qayb gasho waa in doorashada loo wada madax banaanaada waa in aan midda kale ay sakori kaataynin intaas gabdhahan uga baxaya galmudug baa ii soo hartay galmudugay warkiini iyo rafaadkiini iyo dhibkiini baa ugu batay maalmahan meel walba aan joogno waa idinka joog weyn social media adinka haysataan waana la xirxirhayaay waana la dilhayaay ciddaan habar gidiray maxaa adinka idinku dhacay maxaa dawlad u aqli weyseen maxaa dawlad u dhisan weyseen aawo siyaasigiini aawo ninkiina caqliga iyo aqoontala intuu aaday war intee aadeen ma waxaa aqoonyahan idiin noqday war ma waxaa aqoonyahan idiin noqday mahad salaad miya aqoonyahan idiin noqotay habar gidiray ma waxaa aqoonyahan idiin noqday ninka ii sheeg muxuu ahay ii sheeg mahad salaad war ma waxaa aqoonyahan idiin noqday indhaargarad idiin noqday yaa ina cabdishakuur war maxaa dhacay galmudugay war xaggee la iska nasaqan yahay war habar gidiray maxaa dhacay waata meel walba adinka aad ku dayacantiina ku dhibaataysantiina dawlad la'aan miyaa dalbindeen war maxaa aawo aqoonyahanadii aawo dadkii meeshaan loogu talagalay inay ka hadlaan meeye galmudug habar gidiray meeday macadaadi iyo waxaad u kala fadhinaysaan iyo dhuusamareeb ma waxaa idin hor ordahaya hadba oday ilmihiisa inta jaamacada dibadaha ugu dirsadaa idin garab ordahaya war meeye aqoonyahanadii war hadday wax idinka maqan yihiin miiska wada hadalka inta soo fadhiisataan dadka la xisaabtana habar gidiray waana la beecsanayaaye waana la baabi'in ma jirto cid ku baabi'inaysa male cid dalka kaa xigta male dalka waa la wada leeyahay dadku waa wada leeyihin maamul goboleedkii xaggee ku sheegtaan war sheerta ku dhifta xaggee ku sheegtaan maamul goboleedkii hadda maanta waxaan xilka halkaa uga qaadaya anigu halkaas waxaan xilka uga qaadaya xaaf waan ka qaadaya kow waxaan ka qaadayaa ii sheeg hebel casir miyaa liya odaga baarlamaanka waan ka qaadaya labo waxaan ka qaadaya wiilka ra'iisul wasaaraha galmudug waan ka qaadaya saddex waxaan ka qaadaya midka hadda loo dhiibo maba jiraba asagu hebel baasta midka la leeyahay maba jiro asagana waa in xilka asaguna waa ka qaadan yahay wiilal dhalinyaro ah iyo gabdho dhalinyaro ah baa loo baahan yahay oday qabqable ah oday dagaal ku noolo ah intaba looma baahno nimanka siyaasiyiinta maalin ilaahay keena bal u fiirsada waxaa leeyahay hadduusan dagaal dhicin war dagaalka dhacaya nimanka siyaasiyiinta ilmihiina waxaad keensateen yurubaad keensateen yurubba ilmihiina wada joogaan jaamacaday dhiganayo hooyo maskiinaad waxaa rabtaan agoon inaad ka dhigtaan gabar maskiinaad waxaa rabtaan asay inaad u saartaan hooyo maskiinaad cunugeeda rabtaan inaad ku dishaan ood indhaha ka tuurtaan gabar maskiinaad waxaa rabtaan ninkeeda asay inaad u saartaan cunug maskiinaad waxaa rabtaa agoon inaad ka dhigtaan adinkana maxay dhihin ilmihiina jaamacada inay dhigtaan no waa la diiday wallahi waa la diiday aqoonyahan hadday habargidir beesha habargidir ay leedahay waa in miiska wada hadalka la isugu wada yimaada 4 nin xisaabiya oo fiiriya hal nin ah oo ilmihiisa ay joogaan ma jirto waay maxaa dhacay waay nimanka maalin walba social media hor taagano hal nin ah inta galmudug tagay yaa ceel ka qoday ma aragteen hal nin oo iskool ka furay ma aragteen hal nin oo dacwo geeya ma aragteen hal nin oo inta wax booqday ma aragteen kulligood America markay tagaan ay lacagaha ku faraqaan saacunada jab waa baxan Yurub ay tagaan saacunada jab cunada lagu cunayo Yurub ma galmudug iyo la geeya iyo galgaduud ma la geeyaa bariiska la cunayo inta afar calooshooda waa weynaato maamulo isku sheegan isku soo xiraan qol bay cunaan war ma geedo hoostooda dad xoolo ugu geysaan war ma daawooyin baa dadka siisaan war ma isbitaalaha dadka u geysaan galmudug ilaa afka hobyood ilaa afka ay ku imaanaysa meesha ay isaga baxaan balweyne uga darsamaan intaba isbitaalka ma dhisna oo dhibaatada haysataa gabadha joogtaa biyo ma haysato oo iskool ma haysato oo daryeel ma haysato oo nadaab ma haysato oo akhlaaq ma haysato oo ciday barortooda ula caataabata ma haysato war maxaa dhacay aawa aqoon-yahanadii cidda aawa aqoon-yahanadii
war haddaad leedihiin dawlad baana dhacdo wiilashu waana dhaceen meesha madaxda ka uu war inta miiska wada hadalka soo fadhiisataan oo warqad iyo qalin soo qaadataan la xisaabtama oo dawladda budgetka iyo dhaqaalaha aad ku leedihiin dadkiina wax ugu qabtoo ku noqda maalin ilaahay keena dhakafaar iyo dhikaraad lagu ridayn waa wareernay ummadii nabad uma ogolidin adikii nabad iskuma ogolidin heer waxaa la gaaraa la yidhahda habar gediray kaala dagaal ukac maxay tahay dagaalka loo dhaqaaqayo maxay tahay dagaalka hadda loo socdaa ma jirto wax dagaal la yidhahdo ma jirto dagaal waa dhammaaday hooyo maskiina indhaha lagama tuuraayo hooyo maskiina cunugeeda lama dilaayo awrka kuma kacsanaysa ilmahaguna jaamacada ma aadayaan waa habeen xalad tegay inuu kaagala jaamacada intuu aado caawa fadhigaasi boodboodaya iyo cabdishakuurkaas ordaya wallahi haddii wasiir laga dhiga iyo bilaahi inaynan arkayn ilmihiida iyo dadkooda wax ugu maqayin war maxay idii qabtaan ummadda caddaba ordaan war miyaadna sham dareemaynin war maxay tahay xilka adiku aad leedihiin nin waxa ku takriifalanaya waxba ku ogaan markaasuu awkana wuxuu kugu kacsanaya kaygina jaamacad ha aada kaagina ha dhinto aakhira ha u oydo odaygii xilka loo dhibaaw ma wuxuu leeyahay hala soo baxo hala dagaalamo war haddii dagaal wax lagu gaarayo 30 sano dagaal wax lagu keeni lahaa waa la diiday kulligood xilka waa in laga qaada fiqi xilka waa in laga qaada kulligood saaka ana halka uga wada qaaday waa in dawladda inta la fariisataana ku xaqa aad leedahay iyo xuquuqda aad leedahay dadka aad weydiisaan waa inaad miiska hadalka wada hadalka aad timaadaan maxay tahay dawlad la'aantaadu maxay tahay maalul bad iskool la'aantaadu maxay tahay jaamacad la'aantaadu maxay tahay dhibkaan meesha keligeed ka qurunsan oo dadkii loo diidaya maxay tahay malada meeshaan ku jirto wareer abtigayow ummadii ilaahay intii idin noolayna af muslim iyo af gal af idinku timaado waa la waayay ana kunta idin sheegay wallahi daaradka idin la degan hawiyaha idin la degan oo kale jirta idin la degan ummadaha ilaahay idin la degan ma dhibaan hadayin inta naf iyo nolol intaba waa idinka weey meel la idin raac waa la garan waay 19 mawjadoodaasiin ab iyo calal xumaan wadankii la mari weynay war waxa ka inta iskula dhaantaana ku iri haday gabar aqoon-yahan jirto iyo hadii nin xilkasi uu jiro miska wada hadalka la isugu yimaado oo wiilashaan yar ka ee jaamacada ka soo baxay iyo gabdhaha jaamacada ka soo baxay wadanka loo dhiibo maxay tahay subax walba waa la ordaya hooyo wiilka lagu qamaari mayo ma la raba dagaal iskool ninkii dhisaya la rabaa eel ninkii qodaya la rabaa maxay tooray ninkii ummadda wax u qabanaya la rabaa saddexda mas'alo ninkii keeni kara daryeelka dadka asaga loo dhiibaya ma fahamtay oday inta ilmihiisii jaamacada u dirsado leegleeganaya halka afaqda ku haya xabad loo dhiibayo ma jirto odayaashuna waaba kuwa wadanka iyo dadka iyo dalkaba duleeya waa iyaga war maxaa dhacay maxaa cadaada iyo dhuusa mareeb kala dhex jira maxay tahay qashinka ku dhex jira maxay tahay lufada dhex fadhidaa meesha war waa maxay odayaashaan ilmahooda iyo calooshooda kaliya ka shaqaynayo oo gobolka nabadda u diido maxay tahay war miyuusan aqligu soo degin iyo maskaxdu warsaan u qaylinayna waa daalle war habeen ilaahay kana bartaabaan inta idiin soo fariisaan idinku karbaashaya dhagad dheer inta soo qaato baa wallahi idinku karbaashaya ninka dadka ugu xuna murugmaariga waa loo daba joogaa maxaa loo daba joogaa intaasoo ummadaa galgaduud iyo mudug xildhibaan baarlamaan u fadhida intooda 60 iyo 50 inta bixeen weli inta meel dhex fadhiistaan ma yiraahdeen war maxaa naga qaldan iyo ummadaha kale ee meesha jooga weli inta degtaa dhan inta meel isugu timid ma la isweydiiyey galmudugay maxaa meeshaan ka jira oo ka qurunsan ma la yiri maxaa la dhoodhoobaya daashkaa la dhisay la dhoodhoobaya muxuu yahay maxay tahay hawsha meeshaan iska qaban lagu ilmahan maxay ilmaha uga dambeeyaan ilmaha jaamacadaha aada ilmahan maxay uga dambeeyaan ilmaha biyaha iyo eelasha haystaan dadkaan maxay uga dambeeyaan ilmaha isbitaalada haystaan dadkaan maxay uga dambeeyaan maxay uga dambeeyaan waa in la isweydiiyaa waa maalin walba loogu qamaara hooyada maskiinta halkaa fadhida waa xaqi ay dawladda ugu soo dhiibto dadka loo cunaya waa inta hilib loogu korsado meel inta loo dhex istaago dadku ma xishoonayaan miyaa war miyaan aakhir idinka dambayninin war maxay tahay war dariiqiyaan mari weynay anaga lasadeena dhinacan cambaarinta ka sidanaa dariiqiyaan mari weynay waa maxay biyo male abaarta rafaadka dhibaatada maxaa dhacay ummadda kaloo dhan waa dadan yihiin meelay wada joogaan maamul gobolladoodii ay dhiseen meeshaan maxay tahay waxa ku jira ba'aan hoogaan meeshaan ku jira maxay tahay markaasaa weliba waxaa la leeyahay soo baxay dagaalamoy xamaro ha kacdoy ummaddu nabaday rabtaa xamar kii ka cunow nafta waa kii ku farxayo ku farax xamar dagaal dambe enes
galmudug dagaal dambe elef cid dambe ee dagaalamaysaa ma jirto nin walba miiska wada hadalkaa la isugu yimaado dawladda waa in dhinac laga raacaa waa in dawladda lala shaqeeyaa waa in dagaalka 30 sano dhex joogna waa isdilna maxaan faa'iido maxaan hekaynaa maanta maxaan ku qabsanay dagaal maxaa naga soo gaaray dhibaataa naga soo gaartay dhibaatada waxaa naga soo gaartay dawladdii waxaa naga soo gaartay burbur qoysaskii u taabtay qarankii u taabtay intaasaan kaynaa wiilashayadii oo baaba'ay dalkayagii oo baaba'ay annagii oo wada baaba'an aan dagaal ka haynaa dagaal dambe nooma noqdo naagtii ku qarwaysa dagaalan ama naagtii rabta inay dagaalanto wiilkeeda ayadu ha keento bal meeshuu dagaalka ka qabanaya halla arko wiilkeeda laakiin islaan kastoo inta naaxday iyo oday kastoo naaxay cid dambe oo dagaal galaysaa uma jirto waa janti saaka subaxa saakay aada galmudug intan in madaxa oo dhan madaxda waa ka tiri ciyaalka jaamacadaa ka wada baxay iyo aqoon-yahanka wiilasha 30 jirka ah iyo 25 jirka cid aan ahayn dalka looma dhiibayo qarafaad nagu dishana waadna baabi'iseen oo meelaan idin raacnaan garan weyni oo tala aan idinkugu nimaadnaan garan weyni oo meel aan idinka daba qabsanaan garan weyne war waa maxay tahaysaan cid u noolaan kartaa uma jirto cid idin noolaan kartaa uma jirto maxay tahay abargediray soo bax abgaalow soo bax intaa loo socdaa maalin walba ma aakiraa la isku shubaa aakira maa la isku diraa no dagaal haddii la iga yeelayo ilaa afka somaliland ilaa afka soomaaliya cidna cid ma dishan ilaa kan etoobiya degan ilaa ninka degan gaariso degan cidna isma dishan haddii caqligayga aniga la yeelayo waay maxaa la isku dilaa waay maalin walba muxuu shisheeyuu noo kala celinaya wiil iyo abtigiis wiil iyo walaalkiisaana waay nimanka danlayda ahow dantiina waa gaarteena iska taga inkaar idinma daba dhigi karne naga taga nin diiday inuu dalkiisii asaga dadkii meeshii uu ka soo jeeday ee mas-uulka ku ahaa inuu wax u qabto ilaah baan idinku dhaartay mareerkiisii ilmisa bisaa loo daraynayaa caawa ninkaa fiqil ilaa haddii wasiir laga dhigo ama mahadsanaad wallaahi wasiirnimadaa kala qiimo weyn waay war ilaahay laga baqo war ummadda xilkaan uma qaadi kartaana dhiga oo dadka inta baraarugtaan waxaan idin haysta iska qaada waxaan idin haysta iska qaada waxa la arkay oo la maqlay ma ahan wallaahi aniga gurigaygaan dhisanaa kaaguna ha dunnaado war sidee loo shaqeeyaa dawladda haddaad ka eeg sheeganaysid miiska wadahadalka imow qalin soo qaado wixii kaa maqan xisaab ku raadso adoo qori iyo dagaal midna aadan ku doonanin laakiin maalin walba waa dagaalamay maxaad curadkaa ku dile maxaad ku dile walaalkaa maxaa la isku dilaa no meel dagaal aniga aan u rabi lahaa maantay oo dagaalan dhihi lahaa ma jirto waa in ay dadka caqliga iyo maskaxda ka shaqeeya waay gobolada kaleba laguma dagaalamay waay labadaa meelood laleeya ha loo dagaalamo waay maxaa dhacay maxaa la isku qaxinaa xaggee loo qaxaya maxaa loo socdaa maxaa la rabaa ma nabadaa ummadda loo diidan yahay war dadkiina caqliga lehoo baraaruga war dalka iyo dawladda aad maqlaysid waa adiga waa aniga waa wiilasha meesha fadhiya oo madaxda ah weeye iyo wasiirada inteeda keliya ma kulligeenaa wada dawladda ah kulligeen oo isku tagnay waddanka inuu ilaaliyo la rabaa mid inuu xaaqa la rabaa mid inuu nadiifiyo la rabaa mid securitykiisa inuu wax ka ilaaliyo la rabaa waa haddaan xamar imaado si ay dhii maxaad ku diidda isha unbaa la raacayaa kii waddankaan u jeeda warqad dhulka inuu ku tuuro waa soo qabanhaya waryaa warqadaa qaad dawladnimadu waa saas wadamada aan joogno lama ogola haye daaraha dheerdheer oo meeshaan ku yaala rag baa samaystay rag baa u shaqeeya habeen barkii uu dhiidkooda u horay waay maxaa jira maan shaqaysto maan dalkayga ilaashado maxaa dhacay imaaraadkan maalin walba loo sii ordaayo uu oday walba tafaac u caydanayo nimcadu dalkeenay dhex taallaa webiyada aad aragtay iyo baddaad aragta anoo leh iimaan allah iga koriyo dawlad islaam inta ugu tago walaalkaa ku dil inta la yidhaha aan ku soo yeelo war adigoo naagoo halkaa fadhiya caqliga aan garan waayo ma garan weyseen war baarlamaanku waa tuug war maamul goboleedku waa tuug war ummadda ilaahay waxba yaan dawladda wax laga sheegin dawladda fiifaan ley oo ha noolaadaanan ley oo waa daba joogaya oo biyaha iyo caanaan la wadaaya daalimka ciyaalka iskoolka u diidayana allaha naga soo dhex qabto waddanku waa inuu degaa dalku waa inuu xasilow degaa habraha taageerka weynow adinkana
hooyooyin aan beelta lama rabay inta soo baxdaana ku iri iskooba dheer soo qaadataan dalka wax ka nadiifiya oo wax ka xaaqa oo canshuurta keena oo dahabyada guryaha aad ku haysin inta gadaana ku iri dawladda saara oo isku soo yaaco waddanka ilaaliya annaga dagaal dambana nooma noqdo amisom ha iga baxdo ciidamada shisheeye iga baxo markaan arko oday dalkiisii faaruq inta ka dhigay waddan kale u doonanaya baa amisom igu kalifaya inay joogto maxaa la iga waardeynaya maxaa la ii waardeynaya yaa la iga waardeynaya war ilaahay ha laga baqo warkii la yidhahdo maantay jagadaa lagaa qaaday cidkaasu ka soo degaya mid walba waa gelinaya labada nin ee ugu xun ee maamul goboleeda ugu xun ee haddii la iweydiin lahaana ee maamul goboleedyadooda baabi'iyana waa midka koonfur galbeed jooga iyo midka galmudug jooga wax allaali iyo waxay dad iyo dal u qabteen intaba lama arko imaaraadka taga ku dhoofa wax kale oo ay hayaan male waa sirow midba midka kale waa ka calool weyn balaayaali ama calool nin calool weyn oo dhan hadda arti waa handikaab waa nin sawir ah sawirkaa calool weyn suucooluusan layn isku guraay haddii la xilka waa lagaa qaada xil laga cararo laga tagaan arki jirnay xitaa soomaalidan habaarada xilka uu ku wada ordaysa maxay tahay labadii wax loo diidaa halkii nin ee baarlamaan ku jira ama dawladda ku jira ilaahu ku dhaartay haddii wasiir laga dhigi waayo tollaaya yaa reer hebel tollaaya yaa reer maxaa tahay tollaaya yaa reer hebel reer hebel xuu ka siiyey maxaa la isi siiyey wiilashii hore ku dhaawacma reer hebel war ma u hayaa kii ku dhintay reer hebel war ma u hayaa may uma hayo ninkii dhinta asagaa dhintay ninkii dhaawacma asagaa dhaawacmay ninka maanta awrka kugu kacsanaya beri waa kaaga tegaya meeshaas waay markaa ku dhimanaya maxaa ku dhimanaya aniga ilmahayga jaamacada aadaan adikana isbitaal iyo iskoollo iyo biyola'aada maa ku taageera ugu dhimanay berina uusan maydkaaga uusan war weynayn iyo dhaawacaaga iyo dhimashadaada no waa la diiday waa la diiday anigoo halkaas soo fadhiyaa diiday oo dumar ah dadku igama caqli liitaan aniga inaad ilmahaaguna jaamacada ay dhigtaan ay yurub ka dhigtaan ama iskoollo qaali ay dhigtaan kana la yidhahdo waryaa kaala dhimo waa la diiday cid kaa yeelaysa male in cabdishakuurow ku seexo kuwaagana jaamacada intay dhigtaan oo xuruufo qoraan kuwa masaakiintaana iskoolka ay dacas iyo laba rabla ku aadaan wallahi inaysa socoyn mana soconayso ilaa afka hobiyoodaan ku idhi ilaa afka ay ka soo galaan xamar ay ka soo gasho waa inuu dalku nabad noqdaa maalin cadna laga dhisaa la dhisaa no hooyo damboo asay loo saara waa dhammaatay enes maalin walba waxba yaa la dhin habargidir ay soo bax habargidir inta ugu badnayd aaqilay jirtaa inta yaree habtay isdaba qabo waxaan aad ku jirta ka bax afartan nin ee ku horboodayseen adduun iyo aakhira labadaba ku diida tuugada idinka dhigtay ee annagoo dhan sharafta iyada ku dhasha ka hara oo ummadda la xisaabtama oo ummaddii idinla deganeed meel idinkuga hagaagay garan waayeen war ilaahay ka baqa oo ummaddaan ha raacinina ilmahooda dabadaa inta geystay adinka idii soo jeestay odayga dhammaaya xaaf oo aan lahaa dalku kala wadahay dadku kala wadaya xagguu aaday xamar dabadu ma jirta waa la tuuriyeyna maxaad u tuuriyeyna dadkaas ninka dadka kale maxay u dhihi waayeen hala tuuriyeeya xamar way xamar maxaa loo tuuriyeynaya soddon sanaad dagaal ku jirta maanta mar kale dagaal maa lasii ganaa ma jirto ns caqliga waa la isku fahmay inuu nin asaagiin ah idin yidhaahdo dalkiina soo baabi'i yaa doolarkaan qaado ee dalkaaga aa baabi'isid war maqansiir baa tihiin dalka yaa idinka xiga yaa kaa xiga dalka war miyadaan mararka qaarkood ayna sheema dareeminin nin anigu suu idhi anoo naagaan xataa ka yeelaynin intuu yidhaahdo lacagtaan qaado dalkaaga soo baabi'i ama hubkaan qaado dalkaaga soo baabi'i anoo gabarahan qaadanaynin war xaggee wadaniyadda idinka aaday war dalka ma qolo kalaa iskaloo iibuu nagu soo galay war waxaan wax iskula hara oo ninka asaaga oo ilmahaaga nabad la-aan ha ku seexdaano kule kuwiisa nabadda ha u diido naagtiisa iyo ilmihiisa guriga joogaan nabadda ha u diidaan dumarku waa soo kaceen waana soo baraarugnay dalkana annagaana waa ilaalinaynaa khayro iyo farmaajo qoladii la shaqayn jidda annagaa la shaqaynayna galmudugna wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo aqoon-yahanaan ka rabaa odayaasha macal baarlamaanka ku jira banaankaa loo soo saaro anigu aan nabad ku seexdo ilmahaagu ha baaba'a waa la diiday magaalada muqdishoa qori loo qaadanaya waa la isdilaya waa diidnay nabadaa la rabaa
afka Somaliland ilaa afka Djibouti ilaa afka Ethiopia Soomaalida Ethiopia joogto meel walba ay joogto Soomaali waa inay peace ku noolaataan nabad waa inay ku noolaataan cid dagaal rabtaa ma jirto cid reebel rabtaa ma jirto qabiil hadduu faa'iido leeyahay 30 sano baa waxa isdilay wiil iyo abtigiis ma gaari weyna ma nagu filaa weydi no ilaahay baan ka magan galnay inta wadaniga waa soo haraysa inta qashinka lufada uuna way baxaysaa washarta ku dhiftay guriyada ugu tagtay oo bari subaxii waa in xilka si degdeg looga qaada nimanka maalin walba idin matalaaw ilmahood ilaaliya xagay joogaan daawo ma idin keenaan ma idin soo salaamaan iskool ma idin dhiseen wax ma idin qabteen ya badka dawladda aad ku leedin qoladii loo dhiibaahu ayaga cuna maxad marka dawladda ku diidaysaa shacabka masaakiinta tuuriyeeya qof mustaqbalkiina wada nin walba wuxuu rabaa inuu asaga kaligiis ilmihiisa asaga u noolaado adika waa la idin diidan no mana soconayso halkaas intaan fadhiyana habeen iyo maalin waxaan ka sheegaya in ummadda ilaahay inay xasishan lagu dadaalo oo especially galmudug inay tagto waa in lagu dadaalo no kii warwadaan no waa in la yidhaahdo maxaa dhacay sarta uu midkaada degaya kan waa rabaa inuu deganaado iskoolka kaasi uu dhiganayo kan waa inuu dhistaa jaamacadda uu tagay meeshan waa inay ka dhisnaataa ceelka biyaha uu kaasayto waa inuu kan haystaa waa maxaa dhacay waa inay dadku dad siman ay noqdaan laakiin maalin walba baabuur intay ka soo bixiyaan waxaan la soo galaya xamar la soo galaya dadkan baabi'inaya war caqliga foosh xule waa la diiday caqliga foosh xule waa la diiday cid ugaarsanaysa abargidir oo gaar u ugaarsanaysa ma jirto waa nimanka siyaasiyiinta dadka maskaxda waxay uga shubaan waxay rabaan anigu ma xisbi baan wata cabsina ma qabo Soomaalina maxamedna waa isugu kaymid dawladdan rabaa dawlad la'aanu intay iyo shacana garanay wadanka caawa aan jooga kama qayliyeen wadankayga inta tago cambaha iyo babaayga leh baa saa u seexan lahaa ma sha Allah inta gabayaro sildana qaata jaga iska siin lahaa maxay ii diiday nimanka halkaas banaanka waa oo markay dabadaha tagaan leh annaga dalkii dawladda maxaa kuma caarada maaqa nin kale baa dawladii ii diiday wallahi galmudug ilaa tuulooyinkeeda haddaad tagtid afkoob iyo daadsanay inuusan ceel lahayn oo isbitaal lahayn oo meel ay gabdhaha masaakiinta ilmo agoona ku haysta inta qabiilba qabiil lagu diro bay ilmahoodii agoon wada yihiin ay wada dhooban yihiin markaasayse wax allaale iyo waxaysa wallahi inaysan jirin iyo bilaahi fiidiyowyada mararka qaarkood la iga soo duba haddaan idin tuso inaynan oomata cabayninin war waxaasa islaamnimo ah odaga caloosha weynana inta bariis iyo hilib xoolahoodii ku cunu dib isku siiyey war miyaa xisaab u jirinin war maa alla laga baqayninin ilaa afka waxaan ku iri ceelbuur haddaad tagtid waa afka naxeeb waay aawo dadkaan xisaabtii dadkii loogu dhiibay aawo dadkii matalaaya aaway xaggay aadeen no ma soconayso inta ka soo jeeda xildhibaanada baarlamaankana farmaajiya khayrow masajkayga waa dhegaysataan baarlamaanada ayaga ka soo jeeda inta loo diraa ku idhi ninkii war sugan ka keeni waay wallahi xabsigaa loo dhaadhiciyo wiil yar oo 25 jir ma hala keena baarlamaanteeriga ha lagu soo daro because ninka dhacay waa oda dhaqameed ninka siyaasaday waa oda dhaqameed waxayna ku soo bixeen lacagahooda iyo laaluushka beenta ay ku soo wada bixeen war ilaaha idinku dhaarsay ruuxa intaas aan haysan gabadha caawa dhashaa teetanay u dhimanaysaa gabadha caawa dhashaa isbitaal ma haysato markaasuu inta idaacadda isa soo hortaagu leh aniga hadda waa la ii dhaaray ilmihiisana daaway qaataan cirbaday qaataan wax xaq ilaahay ah jaamacaday dhiganayaan lacag qaali weliba ay ku dhiganayaan oo liida ku soo dadkaaga war dhiikarka ha igu kicinina oo xaqiiqda iyo waxa jirtaa yaana life idin wada tusin waanu wada ognahay qayriya farmaajo waxaan idinka codsanayaa oon cod dheer idinkugu diraya gabdhaha halkaa ku sugani galmudug dadka joogaan gal dhiigaaban anigu u aqaanaa galmudug maba aanba waa gal dhiig dadka joogaan inaysan gabadha maskiinta ay joogta aysan daawo haysanin oo aysan isbitaal iyo waxba aysan haysan inaysan meelay ku dhashay haysan inay ilmeheeda waxay siisaysanaan inay xoolin ka baabi'een inay abaar iyo oon u baabi'een markaasuu oday oda ka dhaax hadduu leey waa laydiiday inaa magaalada soo galo wallahi anigu haddaan iyaga ay xasi baan inta idinku guran wada taxyiil lahaa meel godka dhulka hoosaa inta god idinkaga qodaa idinku wada xirxiri lahaa wallahi caqli iyo maskax iyo dadnimo intaa leg iyo damiir idinkuma jirto malaal iyo dalaala wadatiin kulligiin malaal iyo dalaalo cid
intaa leeg ood weji aad u weysaan inaysan jirin weligay yaallayn inaan idin dhaafay xisbiyadiina tuugada ah oo aad furateen naagta caysaa waa aniga maasha allah halkan waxaan salaan uga dirayaa salaad cali jeelle xisbigayga isku darsamaya waa ku taageersanay salaad cali jeelle caqliga salaad cali jeelle uu leeyahay iyo meesha uu ka fakerayo hadday ka fakerayaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dad bay wax la qabsan lahaayeen cudurkiina la arag yidhi caafimaadkiina ha la arkay war cudur iyo caafimaad mid aadi ka daaweyna waa garan la'ana si walba waa la idinla hadlay laakiin ciyaalka dhalinyarada ahow yaa gabadha jaamacadda ka soo baxday wiilka jaamacadda ka soo baxo masajkayga adigu kugu beegaya odaga ilmihiisii dirsaday iyo adiga gurigayga baabi'inin hooyadaa u sheeg masajkayga dhegaysii wiilkeeda yaan lagu dilin dagaal mid waxaad arkaysaa dhuunta go-an tahay oo isbitaalka shalay reer hebel inta u dagaalamaan isbitaalka loogu tagin mid lagu dhaawacan yahay turkiga haddaad tagtaan calool xumaad u wada baaba'aysaa war muxuu qabiil daweeyey war muxuu qabiil wanaajiyey yaa ilaa galmudug aad tagtidoo dhanna qabiilka iyo qurunka iyo qashinka iyo fawdada dhex taallaaw iyaala suqi waa ka cunyiin akas caleeg waa maka siyoota wallaahi billaah salaad cali jallo waa ku taageersana welcome to UK waan ku leeyahay maasha allah xisbigaaguna waa isku darsoomi doonaa taageero weynna waa ku ah dowladda farmaajiya kayrana ha noolaato dowladiidkuna ha dhaco kan dowladda diidanow dhac kan ilmaha soomaaliyeedna iskoolada aadayn diidow dhac yaa odaga shaydaanka ahe ama bad iibinaayo ama beri iibinaayo dhac adiguna dalaal iyo malaal waa tuuriyaynaynaa ma fahamteen waxaan halkaan ka soo jeedinayaa oo kale oon ummadda islaamka ka baryayaa inay sameeyaan gabdhaha ilmaha ootiiska haysta inay faatixada isugu daraan hooyo waxaa jirta soomaaliya joogta oo ilmaheedu xanuunsan yahay oo daawo uusan u haysanin oo rafaad iyo dhibaato ay haysato hooyo waxaa jirta qurbaha adduunka saasoo kale u wada haystaan hooyooyinkaas dhiban waxaan idinka codsanayaa inaad u soo ducaysaan inuu ilaahay ilmahooda caafimaad u siiyo baan ilaahay uga baryayaa adinkana aamiinta igu kaalmeeya qof kasta oo soomaaliyeed oo masajkayga dhegaysta ummadaas aan inuu u duceeyan ilaahay dartiisa ugu ducee waa walaalkaa waa walaasha waa cunug yarood habaryar u tahay oo xanuunsan waa cunugaad adeer u tahay waa cunugaad arti u tahay dhammaantiin daafaa caalamka meel kasta aa ku nooshin